waxaa ugu xun maanta inuu qofku ka dhigto wadiifa oo maanta ma arkaysaa ka dhigto sidaasi oo yidhaahdo maanta arrintaas anaa hirgelinayo oo kaleeto waa iclaamkii oo beentaasan ka shaqaynayo caynkaas oo kaleeto anaa hirgelinayo oo kala ha ogaado siduu beentiisu u faafinayo dadka ugu dhex faafinayo inuu ilaahay sidaa ugu abaalgudi doono subxaanahu wa tacaala beenaalihii sidaasaa lagula dhaqmi ribada kii cuni jirana xaaraanta iyo suxdiga kii cuni jirana sidaasaa lagula dhaqmi agoonta kii cuni jira maalkooda sidaasaa lagula dhaqmi kuwii salaada ka tegi jiray sidaasaa lagula dhaqmi haweenkii oo zinada ku dhaqmi jiray naasaha biraha kala libta loo gelin oo markaasi lagu calliqi doonaa jahannamo dhexdeeda waxaa maanta lagu xabisi doonaa nimankii zaaniyiinta ahaa iyo haweenkii zaaniyaadka ahaa tanuurka sida muufaha lagu dubo oo kaleeto oo aad u kulul baa lagu dhex ridi doonaa marna ka soo boodi doona markaad alagu noqon doonaan ليلة الإسراء والمعراج بان النبي قال تسي عليه الصلاة والسلام waxaa kaloo laga sii cadaabi doonaa maxalul macsiya yaa laga cadaabi doonaa farjigaa laga cadaabi doonaa cadaab bay maanta kala kulmi doonaa nabigu waxa uu huwa al-asaafil meelaha hooseeya aad looga cadaabi doonaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam waxaa lagu sallidi doonaa oo ilaahay uu ku sallidi doonaa farax bay iyagu ka raadinayaan markay zinada ku dhacayaan oo sidaa ay samaynayaan wuxuu ku rid doonaa hammi iyo ghammi iyo xusni iyo aalaam nafsaaniya oona ka soo noqonin oo aad u xanuujidow ilaahay adduunyadana ku sallidi doona qofka zaaniga ah aakharana ilaahay humumtaas uu beerka u gelin doona zaanigu marna kama baxaa la yidhahdaa shiddo kama baxa baa la yidhahdaa zaaniyaddu shiddo kama baxda baa la yidhahdaa murug kama baxda baa la yidhahdaa maxaa yeelay waa inay diinta necbaystaan daa'iman maxaa yeelay diintu way ka celinaysaa mar hadduu wadiifo ka dhigtana waa inuu diinta necbaystaa marka kama baxa baa la yidhaahdaa waayo mashquul buu ku yahay arrintaa iyada siduu cibaadadii rabbi uga mashquulay oo xaaraanta u bannaystay yow ilaahay hammi iyo ghammi iyo xusni iyo alam nafsaani uu ilaahay beerka u geliyaa siduu markii horeba naftiisa uga mashquulay oo salaadii uga mashquulay inuu ciyaaro oo maanta turub ciyaariya iyo qaad u fariisaya iyo balaayo kala wadaya iyo khamro ka aadiya iyo suuqa wareegaya iyo musalsal fiirsaya iyo tv hor fadhiisaya iyo donad fadhiisaya sheekada ku dhameeyaaba soo cibaadada ilaahay iskaga mashquuliyey buu ilaahay ugu mashquulin doonaa balaayo kale aalaamtaas marka naftooda ayay aad iyo aad u dhibi doontaa ilaahay wuxuu ku sallidi doonaa subxaanahu wa tacaala xayawaanaad balaayo ku sallidi doonaa abeesooyin iyo sixiriyaal buu ilaahay ku sallidi doonaa jirkooda ku sallidi doonaa qabriga dhexdiisa iyadoo adduunyada ay ku sugan yihiin dhibkaasu aakharana ilaahay taa ku soo abaalmarin doonaa sidaasay ku jiri doonaan ayadoo ay cuni doonaan wax alla waxaa sixiriyaal iyo balaayo iyo xayawaanaad ay cuni doonaan qabriga ugu jiran ku cadaaban yihiin yow ilaahay intaa ku joojin maya cadaabkoode xayaatadii barsakhaa dhammaan doonta intay la egtahana ma naqaan nolosha marka qofku intuu nool yahay maxduud oo waa la qiyaasi karaa runtii qofkii cirkaas u goodaa 100 sano qofkii dhaafaa la yidhahda waa cimriye laakiin 100 sano iyo 10 sano uu fadhin doono qofku meesha marka nolosha wax yar ma markaas haddii noloshu ay tahay wax yar oo maxduuda oo sanadana lagu tiriyo ay tahay taasuna aanay xisaab lahayn soo adduunyadii nolosheedii wax dhow yar ma marka xayaatu dunya in la yiraahdo way istaahisha marka ama hal lidanan ha ka timaado ama dhawaanshaha ka timaade ilaahay marka wuxuu soo daadin doonaa roob cad oo sida shahwadu ay u caddahay u cad buu soo daadin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adag kamani rijaal 40 maalmood bay dhihi doontaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam waxay ka soo bixi doonaan dadku qubuurtoodii sida ay geedka iyo cawska uga soo dhashaan dhulka oo kaleeto yay uga soo bixi doonaan qubuurtii oo kaleeto markii ay maanta soo buuxsanto oo waqtigeedii la gaaro waqtul wilaada ay joogaan yow ilaahay wuxuu amri doonaa israafiil inuu afuufo markaas kolkaasuu nafqadii hore soo afuufi doonaa markan 3 nafqo ayaa isku daba xigi doonta نفخة الفزع هي نفخة الصعق ولمن دونان هي نفخة البعث يا اسكو حق دون مركا إلهي سبحانه وتعالى أسرافيل بأمر دونا إنه أفوهم مركا نفخة البعث دي وتي قدام بيدو صدحاتا مركا سيصوبح دونا ندكي فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم بالساهرة أرضا كركي لإيقو تاقم بأركي دونان mu'minkii markaa
إلهي بوغا شكر سبحانه وتعالى سقو إلهي عابدية يصابح حمدي يصابح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سقوله هو يقين سن شلي مركو الدنيا جوغا يقين سنة إنه دمان أيه إنه قبورها مدفدونه مؤمن أو يهو إلهي واسعي جنة أو داقة كارك يسوغي إنه قال الدونه وما أنت أمرك أصابحي أسقو قرن يصابحي يا سداله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سقوله صباح يا مؤمن وأما الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سقو سيدا أورانا يصباح يا قال كينا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هلاك يجي أنا قصو صار ماشي إنه كجرين طبعا مرقد يقطها مركي الله في عذاب في وكجري قبل كده حديثة waxa uu naarta la kulmay markii loo eego marqad bay u tahay meel hurday amal bay u tahay laakiin hurda ma jirin xagga hurda ma jirin laakiin markii loo eego waxa sugaya ayay hurda amal u noqotay sidaba jannadu ay ugu tahay janno markii loo eego qubuuraha waxa ku sugaya saasuu la imaan markaas la soo kaxayn khalqiga oo dhan ya allah xufatan uratan ayaga oo wada qaawan oo cagacad bay soo bixi qurlan oo wada buuriya qab ay soo bixi nafka sana oo kaxaynayo saa'iqun yasuuqaha wa shahiidun yashhadu calayha mid kaxaynaya ayada oo mid walbaba oo kaxaynayo malagii oo kaxaynayo daftarkeeda haayay maanta ku markhaati lahaa ayada dadkiina iskugu jiraan mid faraxsan sida mu'minkii iyo mid maanta ma arkaysaa subuur iyo halaag iyo balaayo la qaylinaya mid qosli iyo mid ooyaya ayagoo iskugu dhex jira wa xaqan wujuuhun yawmaidin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وإن أقرينا لكن دقوا ما دقنا وإن حفظنا لكن دقوا ما دقنا وحين لا توكلت وحين صوت عفني وحين صوت عفني وكلا ين لا تاه لكن سيدا سيكو إيماني أنا حقيقة والله سيدا إلهي إليه يكو إيماني سرنتي ما كوجيالنا يقف فرحسن بإيمان والناظرة إيماني سا إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تسيكو إيمانيسا وإن لو قادوا حقيقة أي سيدات هاي لك لديري لغنا ما هي سماركيسي لك لديري عقنا معها وعمل وي وما أنت ماركيسا وقرار وي وقعان وي ساسا لغوك الإيمان هذا مركا كامل نقطه ودمانتو dadkii ay wajhu al-ardi yimaadaan oo maanta samadii ay kala dildilaacdo oo xidigihii ay fanfaniinaan ida samaa'un shaqqat maanta markaysa ida samaa'un tatarat ida samaa'un tatarat wa ida samaa'un shaqqat wa ida al-kawakibu tatarat wa ida al-biharu fujirat ida ash-shamsu kuwirat wa ida an-nujumu kadarat wa ida al-jibalu suyirat ida waqa'at al-waqi'a laysa liwaq'atiha kadhiba khafidatu ar-rafi'a haday sidaa timaado oo caalamkii sidaa u soo baaboo dhammaan faida inshaqat الsamaau fakanat wardatan kaddihaan ay sidaa iskugu timaado maxaa dhici doona kolkaa malaa'igtii samada ay soo degto oo dadkii dhammaa ay soo koobto markaas xero ay geliyaan dhammaan oo ay soo kaxeeyaan kolkaa oo mid walbaaba maanta dadkii khalqigii rabbilcaalamiin ay u soo kaxeeyaan ربنا أو يماده سبحانه وتعالى لفصل ما أنت ماركيسا خصومات لفصل العالمين أو إلهي يماده وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد